YouTube waa goob qani ku ah macluumaad waxtar leh laakiin inta badan aan laga faa'iideysan, balse waxa uu dad badan ka cunaa oo ka lumiya waqtiga, iyaga oo ku dhaxluma malaayiinta muuqaal ee macno la'aanta ah, taasoo ku keenayso inuu qofku waqti badan YouTube ku bixiyo laakiin uu ka faa'iideysanin. Haddaba waxaan videogan kugula wadaagi doonaa nasiixooyin iyo talooyin dhowr ah kuwaas oo kugu caawin doona idinka Alle sida aad uga faa'iideysan lahayd goobtan lagu magacaabo YouTube, khasaarihiisana aad iskaga yarayn lahayd inta suurtagalka ah. Laga yaabaa in talooyinkan intiina badan aad garanaysaan, laakiin waxaan idinku soo gudbinayaa xusuusin oo kaliya, waayo garashada shay waxba ka anfici maayo haddii aadan dhaqan gelin. Qodobka koowaad: ku daawo fiidiyoyada ama muuqaalada waxtarka leh shaashad buuxda full screen. Qodobkan aad buu ku anfacayaa. YouTube muhiimad ma siiyo inaad muuqaal dhammaystirato oo kaliya. Muhiimadiisu waa inaad YouTube ku dhex jirto muddada ugu badan, xataa haddii aad daqiiqad walba u gudbaysid muuqaal cusub adigoon dhammaystiran kii hore. YouTube wuxuu kuu soo bandhigayaa muuqaalo fara badan oo ka hooseeya kan aad daawanaysid, lacalla haddii aad ku caajistid muuqaalka aad daawanaysid si aad ugu gudubtid kan ka hooseeya. Yacni YouTube laftiisa ayaaba kugu qasbaya inaad muuqaal cusub daarato adoon kii hore dhammaystiran. Sidaa daraaddeed waxaa muhiim ah inaad muuqaalka ku daawato full screen. Full screen sidoo kale waxay kaa caawinaysaa inaad joojiso akhrinta kommentiyada, waayo inaad wax akhriso iyo inaad wax daawato iskuma keeni kartid. Qodobka labaad: isticmaal waxa loo yaqaano watch later. Dib u daawo. YouTube wuxuu ku siinayaa adeeg loo yaqaano watch later, kaasoo awood kuu siinaya inaad gashato muuqaal walba oo aad doonaysid inaad dib u daawato, iyo sidoo kale muuqaalada aadka u dheer ee waxtarka leh oo aadan dhammaysan karin hal mar. Si aad muuqaal u gashato watch later, waxaad imaadaa halkan ay ku qoran tahay save. Sidaasi ayaadna ku gashatay. Haddii aad doonto inaad dib u daawatana, ka raadi halkan ay ku qoran tahay watch later. Qodobka saddexaad: isticmaal shaashada subscription-ka halkii aad ka isticmaali lahayd home-ka. Ka isticmaalidda YouTube shaashada subscription-ka waxay kaa caawinaysaa inaad daawato oo aad la socoto muuqaalada ay soo bandhigeen janaalada aad ku xiran tahay. Laakiinse haddii aad isticmaasho home-ka, YouTube wuxuu ku soo bandhigayaa muuqaalo aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin kuwa ugu caansan halka aad joogto ama kuwa inta badan aad daawato, taasoo ku dhaafinaysa muuqaalo badan oo ay soo bandhigeen janaalada aad ku xiran tahay. Qodobka afraad: boobsii ama yaree xawaaraha muuqaalka aad daawanaysid. Waxaa macquul ah fiidiyo aad daawanaysid in qofka soo jeedinayo uu si boobsiis u hadlayo ama si tartiib ah. Haddaba YouTube wuxuu ku siinayaa awood aad ku maamuli kartid labadaas noocba, adigoo boobsiinaya xawaaraha qofka sida tartiibta u hadlayo ama yareynaya kan uu boobsiisku ku jiro. Qodobka shanaad: horay u dhaafi 10 ilbiriqsi ama gadaal u soo celi 10 ilbiriqsi, adigoo 2 mar oo isxiga fartaada ku taabanaya dhinaca midig ee muuqaalka aad daawanaysid. Haddii aad dib u soo celinaysana dhinaca bidix. Tani waxay kaa caawinaysaa inaad isdhaafiso waxa aadan rabin ee muuqaalka soo galaya, ama aad dib ugu laabato waxa ku dhaafay. Nadiifi YouTube-kaaga oo ka dhig mid aad ka daawato muuqaalo ku anfacayo. Tusaale ahaan, waxaad subscribe saartay channel badan kuwaas oo iskugu jira kuwa soo bandhiga waxyaalo ku anfacaya iyo kuwa muhiimadoodu ay tahay inay waqtiga ka cunaan. Haddaba si aad iskaga tirtirto kuwa aad u aragtay inay lugooyo yihiin, imaad halkan ay ku qoran tahay channel list ama meesha ay ku taxan yihiin channelada aad subscribe saartay. Kadibna iska tir oo unsubscribe dheh kan aad u aragtid in uu lugooyo yahay.